gobolka Shabeelle waxa uu ku yaalaa koonfur bariga deegaanka. gobolku wuxuu deegaanka intiisa kale la wadaagaa xuduud saddexda gobol ee kala ah gobolka Qoraxay oo kaga aadan dhanka waqooyi iyo waqooyi bari, gobolka Nagab oo kaga aadan waqooyi galbeed, iyo gobolka Afdheer oo kaga aadan koonfur galbeed. gobolku wuxuu ka kooban yahay 10 degmo iyo hal maamul magaalo. degmooyinku waxay kala yihiin Imey Bari, Abaaqorow, Beer Caano, Dhanaan, Eelaale, Goday, Cadaadle, Qalaafo, Mustaxiil iyo Feerfeer, iyo weliba maamulka magaalada Goday. dhanka deegaanka, shacabku waxa bulshada ku dhaqan gobolkan ay u badan yihiin kuwa degan labada jambiye webiga Shabeelle. dhanka kala saraynta dhulka, gobolka Shabeelle waxa u badan dhulka godan oo inta badan bartamaha sadogtiin dhulkan waxa ka baxay geedka la yiraahdo garanwaaga aan naqaano ama Prosobiska la yiraahdo oo dhul beereedkii qiimaha laha qabsaday ilaa iyo 550 hektar ayaanu ka clear out garanay oo ka jarnay geedaha laga bixiyay. hektar lagu sameeyay focis arbush iyo fiilay waaxda electromechanical-ka qaybta oo ah qaybta ugu muhiimsan ee uu mashruucani ku fadhiyo ah meesha ay biyuhu ka soo galaan ee biyo xidhanka laga soo weeciyay. waxaan ka dheeraynaa albaabada ay biyuhu ka soo galaan intake gateska la yiraahdo in iyagana dayactir weyn lagu sameeyay. حاضركنا waxaa dhul aan ku guulaysan inaan diyaarino 2,000 hektar oo lagu beeri doono dalag kala gedisan oo ay u badan tahay inta badan boqolkiiba 70 ay tahay galey inta kalena ay tahay qamadi sinsin iyo khudaar kala gedisan lagu beeraan oo qorshuhu uu noo yahay. xarumaha daryeelka iyo daaweynta xoolaha waxa gobolka ku yaala 102 xarumood iyo hal suuq xoolo oo ku yaala isaga degmada Qalaafo. gobolka Shabeelle waxa ku yaala 217 dugsi waxbarasho oo isugu jira 22 dugsiyada APE, 62 dugsiyada hoose, 111 dugsiyada hoose dhexe iyo 22 dugsiyada sare iyo kuwa diyaar garowga tacliinta sare ah. heerka daboolka waxbarashada ee dugsiyada hoose oo lagu qiimeeyay in ardaygu in ka yar 2 kiiloomitir uu ku gaaro dugsiga waxbarasho waxa gobolka laga hirgeliyay 66.3 boqolkiiba. heerka daboolka waxbarashada dugsiyada sare oo lagu qiyaasay in ardaygu uu ka yar 5 kiiloomitir u safray iskuulka waxa lagu gaaraa 23 boqolkiiba. gobolka waxa ku yaala 185 saldhigyo caafimaad oo isugu jira 154 rugo caafimaad ah, 30 xarumo caafimaad iyo hal dhakhtar.